shaqaalahan ajaanibta ay gacanta ku hayaan kooxaha burcadbeeda Soomaalida isla markaana ka cabanaya in xilligan ay soo food saartay xaalad nolol xumo iyo mid caafimaad ayaa raggan ay markab ay wateen oo nooca kalluumeysiga laguna magacaabo Riham 3 waxay kooxaha burcadbeeda Soomaalida ka qabteen badweynta Hindiya 13 bil ka hor markabkan oo ay saarnaayeen shaqaale gaaraya 27 ayaa ka diiwaan gashan dalka Cumaan waxaana laga leeyahay dalka Taiwan. shaqaalaha saara markabka ayaa u kala dhashay wadamada Vietnam, China, Taiwan, Indonesia iyo Philippines. inkastoo laba kamid ay ku geeriyoodeen markabka dushiisa oo mid kamid oo ah kabtankii markabkaasi ayaa haddana 25 kale waxay kooxaha burcadbeeda Soomaalida ay la aadeen miyiga degmada Xardheere ee gobolka Mudug halkaas oo ay ku haystaan dhibta ugu badan ee shaqaalaha markabka Riham 3 haysta ayaa ah nolol xumo iyo caafimaad darro soo wajahday iyo sidoo kale in mararka qaar ay dhibaatooyin kala kulmaan kooxaha haysta kala kulmaan dhibaatooyin xilliyada ay isku dhacaan. Arnel oo ah kabtan ku-xigeenka markabka ayaa ka codsaday wadamada ay ka soo jeedaan ee shirkadii u shaqeynayeen inay gacan ka geystaan sidii loogu sii deyn lahaa kooxaha haysta. I'm begging all help of the company and to our country because we're suffer too much here. Sometimes no water, sometimes no food. Please help us, take us out of here. To our family, be strong. Help me to pray. Thank you, that's all. Help, it's very, very difficult because lack of medicine. Sometimes no medicines. That's and the food sometimes shortage. Only in 1 day, 2 times. It's like that, sir. afayeen u hadlay kooxaha haysta shaqaalaha markabka Riham 3 ayaa sheegay in raggan ay ka doonayaan lacag madax furasho isla markaana uu ku eedeeyay inay ku soo xadgudbeen biyaha Soomaaliya sidoo hadalka u dhigay asagoo sheegay lacagaha ay ka doonayaan inay tahay mid ay kaga soo xadgudbeen biyaha Soomaaliya. waxaan nimankan ku haysanaa niman tuuga oo badeeni dhacay bay ahaayeen markii badeeni dhacayeen oo la qabtay intaas oo bilood baan badda ku dhaxaynay ka bacdina biriga u soo dejino hadda saanaan 7 bilood ku haynaa madax furasho ayaan u haysanaa nimankan tuuga qabanno badeena ka qabanayna ahay bajidaayo markabkiina waa haynaa ayakana waa haysanaa birigana 7 bilood baa ayaka ku haynay markabkii tuugaayo xuquuqdeen iyo 3 bilyan oo dollar ka badan ay saarantaana waa haynaa ayakan iyo markabkaas 20 milyan oo dollar ayaan ku lagu ganaaxay ciidamada koosi gaarka ah ee baddaas waadiyay. dhibaatooyinka dhinaca caafimaadka haysta shaqaalaha markabka Riham 3 ka sukow waxay dhibaatooyin kala kulmaan ragga haysta oo xilliyada qaar jirdil u geysta. Abdulqaadir Axmed, Television Cable, Gaalkacyo.